madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dalka Jarmalka. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha horumarka, xoojinta iskaashiga labada dhinac iyo fursadaha maalgashi ee ka jira Puntland, kuwaas oo xaruntani u sameyn doonto galaangal iyo u qareemid ee la wadaagto dowladda Jarmalka. Madaxweyne Deni ayaa wafdiga ku bogaadiyay booqashada ay ku yimaadeen Puntland, isagoo ballan qaaday in dowlad goboleedka Puntland ay si buuxda u soo dhaweynayso maalgashiga caalamiga, gaar ahaan midka Jarmalka. Waxa uu warbixin ka siiyay kheyraadka dabiiciga ee deegaanada Puntland, muhiimadda istiraatiijiyadeed ee ay leedahay gobolka, iyo sida amniga iyo xasiloonida Puntland ay u tahay tiir muhiim u ah horumarka. Wafdiga oo maalmahan ku sugnaa Garowe ayaa booqday xarumo ay ka mid yihiin madaxtooyada Puntland, wasaaradda beeraha, deegaanka, qorsheynta iyo biyaha, isbitaalka guud ee Garowe, shirkadda korontada, dugsiga farsamada gacanta Garowe iyo Weeciye, iyo isbitaalka guud ee Qardho. Ugu dambeynna waxay kulankooda madaxweynaha kula yeesheen magaalada Boosaaso.